الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. dhalinyaro ayaa i weydiiyey maxaa ugu dardaarmaysaa dhalinyarada joogta Yurub ama guud ahaanba galbeedka iska dheh. jawaabtaydu waxay noqotay waxaan ugu dardaarmayaa awalan alla ka cabsiga iyo inay ilaahay ku xirmaan diintooda iyo luqadooda iyo dhaqankoodana ay si fiican u qabsadaan. maxaan u leeyahay diinta kadibna luqadda iyo dhaqanka aan u leeyahay? maxaa dhacay? luqadeenu waa luqad ummad muslina, waxay ka tarjumaysaa oo ay xambaarsan tahay dhaqankii dadka muslimiinta iyo taariikhdoodii bay xambaarsan tahay iyo ummadda aad ka timi ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa dhaliyay. dhaqankaasuna wuxuu xambaarsan yahay in badan oo kamid ihi. waa jiraan dhaqano xun, laakiin dhaqano badan oo kamid ihi waa dhaqamadii islaamiga oo islaamku uu farayay bay ka tarjumaysaa. oo masalan dadka soomaalida hadda dhaqanka say isugu xiran yihiin, qaraabada loo xiriirinayo, qofku waxaa laga yaabaa dadkii Yurub iyo qalbiga iyo yimi saad dhalinyaradu og tahay, ayeeyo xiriiriyaa, awoow xiriiriyaa, eedo xiriiriyaa, habaryar buu xiriiriyaa, abti buu xiriiriyaa, abti buu xiriiriyaa, adeer buu xiriiriyaa, waxaasoo qaraabo ah. xagee ka yimi dhaqan? islaamku ka yimi. waana dhaqan ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. caruurteenu haddaanay dhaqankaas qaadan iyo dhalinyarada Yurub ku kortay, ummadda way ka go-ayaan. dhonke maxaanay igu jiraan? aabahay baan aqaanay, hooyadii, iyaga cid kaleeto ma garanayo. sidaasay u badanaysa. maxaa dhacay? dhaqanka Soomaalida ma laha islaamiga ahay wanaagsanaa. islaamku markii uu yimi waxaa jiray dhaqama dadkii jaahiliyada ahaa ay adeegsan jireen. wixii wanaagsanaa wuu daayay islaamku. wixii wanaagsanaa wuu daayay, wixii xumaana wuu ka reeb. marka islaamku wax walba oo bani aadamku uu keeno ma wada tuurayo. wixii wanaagsan waa la aqbalayaa, wixii xunna waa la iska reebaya. sidaas oo kale marka waxaan ugu dardaarmayaa inay diintooda iyo dhaqankooda Soomaaliga ah iyo luqadda Soomaaliga, af Soomaaliga, afka hooyo la yiraahdana inay ku dadaalaan ay qabsadaan. waalidiintana waxaan farayaa gaar ahaan hooyooyinka inay caruurtooda qurbaha ku dhalanaysa af Soomaali kula hadlaan oo baraan, oo guriga intay joogaan aan wax kale lagu hadleen. afka hooyo wuxuu ilaahay yani ka dhigay oo dadku ay u yiraahdaan afkii hooyo. hooyadaa barta, hooyada ayaa barta. qodobka labaad waxaan leeyahay qarbiga ama Yurub kulligiisoo dhan wax wada xunna ma wada aha, wax wada fiicanna maaha. waxa wanaagsan ka qaata cilmiga, idaarada, maamulka, nidaamka, technology-ga oo caalamka ku qabsaday oo ku horumaray qarbigu ama dhulka galbeedku. ka qaata shaqada ilaalinteeda, nidaamkeeda, organizationka iyo managementiga iyo technology-ga uu ku horumaray oo adduun ku qabsaday. ka qaata waxa xuna qashinkiisa ah ee waxyaalaha isaguba aan agtiisa wax weyn ka ahayn, oo timaho inta la duuduubto rasta laga dhigto, maxaan ku sheegay suweelka dabada laga rido, la jiido, maxaan ku marba dhinac laysu tuurtuuro. taas waxay la tahay waa saqatul mataac, waa qashinkii galbeedka, garbage-kiisa. iyo inaan inta qashinka aadno aynaan iska dayn warshadaha iyo masaanicda iyo jaamacadaha iyo laboratoryga aynaan dhaafin, oo aynaan qashinka ku leexan iyo dastreska. taasna waa u dardaarmaya dhalinyarada. waxaa aada iyo aad yani arrin looga naxa ah in dhalinyaradeena in badan aada arkayso dhalinyarada Soomaaliyeed inay waxyaalahaas danaynayaan, wixii kalena in wax ka qaadan oo cilmigii iyo aqoontii iyo jaamacadihii iyo waxbarashadii iyo shaqadii ayaan ku fiicnayn. waxaan kaloo u dardaarmayaa baan ku iri, waxaan u dardaarmayaa cibaadada iyo salaada inay ku dadaalaan.
waxa weeye ninkii nabiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey Sufyaan ibn Cabdillahi Thaqafi wuxuu ku yiri yaa rasuul allahi rasuulkii allow ii dardaaran oo iina koob oo ha igu ballaarin wax badan oo aanan qaban karin ha igu sideen wuxuu ku yiri qul aamantu billahi thumma istaqim aamantu billahi thumma istaqim kuna istaag anigu waxaan leeyahay salaada qabsada waxa kale oo dhan waa idin hagaagaya salaada jumcada iyo jamaacada iyo khushuuceeda iyo waqtigeeda ilaaliya haddaad taa ilaalisaan islaamka intiisii kale oo dhan waxaan idin damaano qaadaya inuu idin hagaago insha allahu tacaala haddaad salaada ku hagaagto maxaa dhacay waa fariidada ugu muhiimsan xiriirka addoonka iyo ilaahay subxaana wa tacaala ka dhexeeya haddaad dhalinyaroy salaadiina hagaajisaan oo shanta waqtigeeda iyo jamaacadeeda ku tukataan gorgortan aydinaan ka gelin jaamacad iskuulka shaqada jidka meel kastoo marayso salaada waqtigeeda ku og ilaahayna wuu ku jeclaan umuurtaadana ilaahay wuu ku hagaajin ina salaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar waaqim الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إلهي سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا مركا صلاة خاصة فجرك إيا صلاة جماعة إيا جمعة iyada oo aad ziinadeedii iyo wanaageedii iyo isu diyaarinteedii iyo jeclaanteedii u qaadanaysaan salaada ku dhiga waxa kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu idin hagaajinayaa wuuna idin toosinayaa dardaarankaydu intaas weeye asal allaha lii walakum atawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu